السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن أو نكسن صاحبتها إنه جعلنا هاي ميل والبا جوكتان يسي والبا مقالكن أو إدين سوغاري وحن إدين لنا هاي مالي ونكسن قف والبا حلقة وتهاي منصب والبا وكسوغاني هاي أيان لنا هاي ونكسن runtii magaalada Muqdisho oo guud ahaan in badan oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxa ka taagan arrimo fajac ilayaab gabi ahaanba ku noqotay dadka Soomaaliyeed sidoo kalena hadalhayntan waxay ka taagan tahay sida adigaba aad ogtahay qaybaha kala duwan social media gaar ahaan dadkii idil waxay iska xaadiriyeen aalada lagu magacaabo Telegramka si ay halkaasi kaga wardoonaan waxa laga yaabaa saaxiibo badan oo iyaga ay yaqaaniin in halkaasi bandhigyo fara badan loogu soo sameyn doono waxa jiro rag fara badan oo runtii lagu soo bandhigayo muuqaaladooda halkaasi sida aad la socotaan horay rag badan oo runtii aan dhigi karo waxa yihiin kuwa mangaab ah waxa sharaf dhacay waliba bahdil ay ku sameyn jireen dumarkeena Soomaaliyeed kuwaasi oo iyaga aaminay ugu dambeyntiina noloshooda meel cidla soo dhigay hadda rag badan oo aan ku qiyaasay in kuwaasi ay ahaayeen in iyaga toogtooda ay noqotay oo la soo bandhigayo aalada Telegramka waxa waayihii ugu dambeeyay gaar ahaan maalintii ugu dambeeyay la soo bandhigay sawiro iyo waliba muuqaalo la yaab leh oo rag Soomaaliyeed iyaga waliba xaalado kale ku jira sida sawiradan hadda idin muuqda oo kamid ah sawiradii ugu hadalhaynta badnaa baraha social media Facebooka TikToka Telegramka iyo waliba YouTubeka oo hadaba dabcan muuqaalo badan aad ka heli kartaan inkastoo aaladaha TikToka iyo sidoo kale YouTubeka aysan ogoleen muuqaalada anshaxumada in lagu soo bandhigo haddana Telegramka waa aalada kaliya maanta qof walba isha uu ku hayo si bandhigyada loo sameeyo isla markaana waxa dadka qaar ay sheegeen qaar kamid ah hablaha Soomaaliyeed iyagu ay urqansadeen ay go'aan ku gaareen in rag badan ay arimahooda soo bandhigaan hadii ay jireen kuwa hore looga hayay iyo waliba kuwa hadda dabinka loo dhigi doono arintaasi markan ka soo gudubno arimaha kala la yaab kale waxa kamid ah muuqaalka aan idin la wadaagi doono qof walbana dabcan waxa loo saaraa walaga garbaxaya walagu gudbinaya iyo waliba waxyaabo kale idinka aad fahmi doontaan shakhsigan aad idin soo wado waa kin CK muuqaal laga soo duubay hadda dabcan ma dhigi karo aniga ma ahi horay muuqaal dabcan loogu qaldamay ayaa laga soo bandhigay kin CK laakiin muuqaalkan bal sikimada ah daawada CK waxa ku dhex jira musqushiisa qawayska isla markaana muuqaalkan sida in badan ay u fahmi doonaan waxa laga duubay xili oo dabcan taree la saarnaa gabadh walaga garbahaya oo lagu gudaya nabarada ku gaariyo ajiib ayay noqotay runtii social media gabi ahaanba dumarka qaarkood oo dabcan arimahan aad kaga hadlayay sida fanaanada Malyumaanka waxay sheegtay in rag badan oo caan ah saxada la soo saari doono isla markaana muuqaaladooda la soo bandhigi doono markan waxay u muuqataa in la ilaalin doono rag badanna daaqada shabaqeeda gadaale ay gali doonaan waa la yaab arimaha caynkan oo kale ee ka dhax socda baraha social media wad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan hadii aad ku cusub tahay subscribe saaro hadii aad tahay nin ragna dabcan isilaali kaamirooyinka aad ayay dabcan u badan yihiin barta aalada Telegramkana ka bardoon waxa laga yaabaa qof aad taqaano oo waliba yaata dhigi karto in waqti walba saacad walba oo xaadir ku yahay ama la soo qabtay ilaaha naga badbaadiyo